madaxweynuhu indha adeeg ra'sumaal maaha, indha adeeg ra'sumaal maaha, indha adeeg meel xun uuna geynaa. waxa sharciga ah, waxa saxda ah, waxa oo dadku ku heshiiyeen meel la gey karo ra'sumaal noo noqon karo berin ummadda anfacayo. laakiin adoo ujeeda inaad khaldan tahay inaad tiraahdo indha adeeg waa ra'sumaal waxayga waa wada, xoogaa waxaan maleynayaa inay wax badan khaldan yihiin u baahan madaxweynuhu in la toosiyo. wax kasta oo doorasho oo waddankaani uu kusii joogi karo waxay tahay in inta la wada fadhiisto oo inta kasoo jiid iyo inta kasoo jiid la isku keeno meel dadka ay ka wada raali yihiin. laakiin anaa iri waxaan doonaa suubsanaa madaxiygaan ka soconaa, ma fahmaysaa? waxaasoo dhan waxaa waaye waxaa laga soo diiday madaxweyneha asaga ka horreeyey, waxaa laga soo diiday tii waddanka u burburtay. haddana ma u maleynaya inay wax shaqaynaystaan, laakiin soomaaliya un bay socodkeeda ay dib u dhigi kartaa, hakad geli kartaa, ama doorashada waqtigeeda ay daahin kartaa keliya. haddii dastuurkii oo hadda xildhibaanadii xataa la raba inay ansixiyaan la qasbayo la jajuubayo, xaggee dastuurkaasi ka shaqayn doonaa, xaggee laga hirgelin doonaa oo isteedyada qaar ay leeyihiin waaba ku jirno oo dan kama lehin. aniga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha ama tiimkiisa aan dhihi lahay caqliga ha shaqeeyo, dib ha loo dhigto, codayntaana la ordaayo dib ha la iskaga dhigto. waxaan rabi lahaa madaxweynaha inuu mar kaliis gadaal u fadhiisto oo ka fekero uu yidhaahdo maxaad aad keenaysaa haddaa intaan suubiso oo keligaa maskaxdaada ka socoto, maxaase halaabay uu yidhaahdo. haddii aad dhegaysato dadkan kula hadlaayo oo ama mucaarid ku magacaabo ama dad kale ku magacaabo, haddaad dhegaysato maxaa hirgalaya, maxaa gaaraysaa, haddaad dhegaysanayso maxaa imaan kara inuu ka fikir aad u fiicnaan lahayd. qof kasta oo Soomaali ah, dad badan oo Soomaali waxa laga yaabaa inay leeyihiin idinku mar walba ninka joogaa leeyihiin ka deg meesha. maslaxadda ummadaana ku dhisan in waddankaani qof dictator uuna samaysmin. maxaa dhacay 21 sano dictator subsanaa, wixii aan dhisnay 21 sano hal maalin iyo hal bil iyo hal sano ay ku wada burbureen in dhulku tageen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ramadaan kariim idil ahaantiin baa daawadayaal iyo dhegaystayaal kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu hoygiisa magaalada muqdisho kula yeelanayno musharax madaxweyne cabdulqaadir cosoble cali, sidoo kalena xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. mas-uulka ayaa sidoo kale waxa uu ka tirsan yahay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ah kudlad ay ku midaysan yihiin murashaxiinta Soomaaliya iyo dabcan qaar ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada. marka ugu horeysa waan kaga mahadcelinaa waraysigaaga, soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وما صنتها ماركتي هذه بعض إذا عاد شباب وقصود وين بارك الله فيك. aad baa umahadsantahay cabdulqaadir. dabcan waxaad ka tirsan tahay sida aan sheegay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. dabcan wada hadalla ayaa jiray dowladda dhawaan, gaar ahaan madaxweynaha aad kula yeelateen aqalka madaxweynaha. maxaad u sheegi kartaa bulshada oo wada hadalladaasi dabcan looga dooday? بسم الله الرحمن الرحيم. marta wada hadallada way jireen oo waxay ahaayeen isbuuci hore. dabcan madaxweynaha wada hadalka aan la yeelanay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda qorshaha madaxweynaha hadda uu waddanka ku hogaaminaya qaar ka mid ah oo ku dhahay mucaaradkii oo dhan meeshaas ku kulmay. waxayna ahayd talo ah ama codsi ay soo jeedeen ama baaq ay soo jeedisay golaha mustaqbalka oo ahaa in madaxweynuhu uu dhigo gogol looga hadlayo waddankan sida lagu samata bixin lahaa oo uu ku geli lahaa doorasho shacabka iyo siyaasiyiinta ummadoo dhan ay ku kalsoon yihiin oo raalli iskaga yahay lagu geli lahaa. waa tii kismaayo aan ku shirnay oo golaha mustaqbalku dalbaday, madaxweynuhuna muddo 29 maalmood kadib waatuu aqbalay, uu yeeray 1 bishii lasoo dhaafay inaan ku galno bishii Febraayo. dabcan wixii dhacay waa dhaceen, laakiin markii dambe waa tii aan ku kulannay madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha uu nagu martiqaaday 2 maalin meeshaas shirka uu ka dhacayay. 2 marba waxaa laga hadlayay waxay ahaayeen waddanka wuxuu maraa waqti oo mandate-ka dowladda madaxweynaha iyo golaha shacabka ama labadiisa aqal uu dhammaad yahay oo muddo yar ay ka dhiman tahay, welina ma muuqato weygii looga sii gudbi lahaa fatradaas iyada oo kala guurka ah. waxay ahayd in laga hadlo oo laga heshiiyo oo meel laysla dhigo fatradaasi sida lagu dhaafi lahaa, kala goyskaas sida lagu dhaafi lahaa. oo waxaa laga hadlayay doorasho
oo maaragtay doorasho nadiif ah oo suurtagal ah inay ka dhacdo waddanka. haddii mid weyn oo fiican la raadinayo aan la heli karin ama aan waqtigeeda la gaarin ama aan la suubin karin, mid dadku ay ku kalsoon yihiin la suubiyo. mowduuca ugu muhiimsan oo laga hadlaya kaasuu ahaa dastuurkan oo madaxweynuhu maalin walba uu bedelayo oo uu leeyahay waa dhamaystiraa. konseen badanaa laga qabay, waana loo sheegay, laakiin waqtiga hadda la joogo waxaa ka daran oo ka u dhinaas badan waxyaabaha adduunka ka dhacaya, isbedelada dhacaya, inaan dowladda Soomaaliya sharciyada ka dhamaato aan heshiisna lagu ahayn waxay kusii joogi karto inay khatar weyn ay tahay oo Soomaaliya jiritaankeeda dhib ku ah. arrimahaasaan ka hadlaynay, mana isku fahmin oo madaxweynihii iyo golihii mustaqbalka iskuma raacin aragti midaysan oo marka looga sii gudbi karo. sidaas uuna ku dhamaaday shirkaas. waaya mudane dabcan wadahadalladaasi markay burbureen dowladdu warbay ka soo saartay, xubno ka tirsan golaha wasiirada hadlay, waxayna sheegeen ajandihii la idinku ballamiyey dabcan idinkuna meesha aad ku tagteen inaad baalmarteen oo aad ka hadasheen dowlad goboleedyada qaar oo dabcan mandate-ka ama duxleedka uu ka dhammaaday in loo kordhiyo. taasna dowladdu ay idin sheegtay in shaqo dowlad goboleedyadaas iyo dowladda dhexe u taalla ay tahay. arrintaas ma jirtaa? sideeda marka doorashada Soomaaliya laga hadlayo waxay khusaysaa waddanka oo dhan, ma khusayso magaalada Muqdisho keliya. waxay ka imaadaan xildhibaanada sidaa la socotid oo labada aqalba gobollada waddanka oo dhan ay ka imaadaan. waxay ka imaadaan isteedyada hadda dhisan oo dhan ay ka imaadaan. haddii isteedyadii ayna sharciyad ka jirin oo maamul oo dadka deganaa 100% ay kalsooni ku qabaan oo sharciyeysan uuna ka jirin, bal qaarkood sharciyada ay ka wada tuttuga sharciyada ay ka dhamaatay, saddexda isteed oo ka soo haray maaragtay labada markaas shirka ka qaybgalayay, waxay ahayd si doorasho loo galo waa in maamuladan uu doorasho ka dhacaa, tii federaalkana ay ka dhacdaa. waana khusaysaa, waxay noo khusaysaa dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay labada gole ku dhisan tahay. labada golena waxay ka imaanayaan isteedyada ka imaanayaan. isteedyada inuu madaxweynuhu yidhaahdo sharci anaa idin ah, afkayga idin ah, iska jooga, waxay dhalaysaa inuu yidhaahdo berri kuwa joogan inuu yidhaahdo iska jooga anaa afkayga sharci idin ah, waa iska wada joogeynaa. doorasho haddii laga hadlaayo isteedyadana waa in laga hadlaa, ta federaalkana waa in laga hadlaa, waa waajib. annagaana ka hadlayna, isteedyadana annagaa ka mid ah. marka in madaxweynuhu iyo tiimkiisa ay dhahaan isteedyada looma tirsanan, isteedyada dowladdii waxay kala dhexaysa isteedyada. annaga isteedyadan ka nimid, xildhibaan ma ahay, golaha shacabka ah, hirshabeellaan ka soo jeeda. ragga kale qaarkood jubbaland ragga qaarkood south west ka soo jeeda, ragga qaarkood waxay ka soo jeedaan galmudug. soo madaxweynaha iyo tiimkaas u dhihi karaa idinku shaqo kuma lehdeen, annagaa shaqo ku leh. marka arrintaasi waa arrin oo u moodid inay maaragtay ismoodsiinayeen inay saas waqti ku dheereystaan ama ay kusii joogaan ama hadalka oo ku fashil bay ku raadinayeen. doorasho waa inay dhacdaan nadiif ah oo markay u yartahay dadka degaankaasi degan iyo mas-uuliyiintooda iyo siyaasiyiintoodu ay ka wada qayb yihiin waa inay dhacdaa. laakiin ma lagu joogi karo, dowladnimona kuma dhisnaanayso in isteedyada qaar ay ka dhammaatay 3 sano ka hor sharciyadoodii ay ku joogaan keliya madaxweynaha rabo in saas la ahaado. sharciyadda waddanka dhan iyo dastuurada waddanka dhan kuwa maamulada iyo wax walba ayay burburinaysaa. annagana waxaan ka hadlaynay waddankan in wax ka burburinay, wax loo dhiso, wax loo siyaadiyo. dabcan waxa khilaafka iyo dooda inuu burburo wadahadallada keenay labada qodob ay ahaayeen oo doorashada iyo dastuurka. waxaan ognahay in madaxweynuhu uu muddo dheer uu ka shaqaynayay ama ku celcelinayay in waddankan doorasho qofkii ay ka dhacdo, dastuurkana maaragtay la dhammaystiro. dabcan adiga laftigaaga murashax baad tahay, dhowr hore waa soo tartantay oo dabcan waad ku soo ololeysay. marka maxaad ku diidaysaan idinku inaad doorasho dadweyne ka qayb gashaan? annaga maba diidanba doorasho dadweyne ka qayb galno, laakiin waxaan diidnay doorasho macmal ah oo tii Muqdisho laga soo biyo kale ah. taas doorasho lama dhihi karo, dadweyne ka qayb galan lama dhihi karo. adigana weliyaa tahay, magaalada waad joogtay, waa ka warqabtaa in la yidhi consulisaa la dooranaa, shacabka la soo bandhigay, shacabka la soo bandhigaa, shacabka waa la soo bandhigi karaa, dadka waa imaadeen. magaalada Muqdisho 1 milyan degan, meeqa qofaa qoray lagu qoray, kuwa xooga lagu qoray maxaa ka yimid? waxaasoo dhan waxay tusinaysaa kalsooni darro ka jirto doorashada iyo qaabka loo wado. shacabka Soomaaliya waa u baahan yihiin inay codkooda dhiibtaan, annagana waa rabnaa. meesha qof walba uu tamaninayo in la gaarsiiyo dadka waa in dadku ay qofka maamulayo ama dooranayo degma ugu yar ilaa ay meesha u sareyso dadka rabitaankooda uu ku yimaado. laakiin hadda waxay tahay wax rabitaanka hal qof oo madaxweynihii ah ku socdo. doorashada nafteeda
guddigaan sharci ku dhisneen sharci xataa doorasho oo konsula oo la marsiiyo ma jirta qarjajaca lagu waday anaga ma diidanin doorasho nadiif laakiin waxaan u baahnaa doorasho haddii la qoro waddankan waad og tahay magaciisiyo wuxuu soo joogay dagaallo fara badan waa ka soo dhacay burburuu soo maray isku kabkabuu joogaa iyo isku reexreex iyo dadka la isku keenkeenayo 35 sano waxay nagu qaadanaysaa dagaalka sokeeye in laga soo kabto maanta in loo celiyo wixii dagaalka sokeeye uu ka dhashay oo ahayd nin inta doorasho sanduuq dhigo oo dadku yidhaahdo madaxweyneyaal la doortay 99.9 la doortay la dhahayo taasaa laga dagaalamay maanta annagoo nool oo taagan oo dadkii arrintaas waqtiga dhacaysa iyo wixii ka farmay ama wixii ka yimid og inay maanta ku tamaniyaan ama ku fikiraan inay tii oo kale waddanka u celiyaan annaga mas-uuliyaddeena tahay inaan gacanta ka qabno dhahnasaan doorashadii la rabeed ma ahan waxaa loo qaban waayay 2012 2016 2021 intaasoo dhan duruufahaan saamaxayn markii la yimaado waqtiga doorashada inta la iskaga yimaada maxaa suuragale aa laga hadli jiray madaxweynuhu waxa uu diidaya maxaa suuragale waxa uu rabaa wax alla wixii asaga uu ku joogi karo noocii doonta ha noqoto wax alla wixii uu ku joogi karo oo xukunka uu iskaga sii joogi karo ayuu rabaa inuu qabto laakiin dhowr mar buu ku celceliyey mudane in uusan muddo kororsi rabin oo doorashada waqtigeeda uu ku qabanayo hase ahaatee doorasho qof iyo cod ah uu qabanayo marka ma dhici kartaaba adagoo silaaba xilligan qof inuu iskaga celcelsho war ficilkiisana ay ku tusinayso waxa ku hadlaya wax ka duwan wax oo caadi ah maaha maanta waxaa ka dhiman muddo xilidka madaxweynaha wax 8 beri aan dhammayn 70 dhowr maalmood ka dhiman inaan la socotaan umaleyna haddayna ba ka yareen 73 haddaysan maxaa ka sii yareen u dhiman mana haay ilaa hadda wey oo waddankii oo dhan doorasho laisla ogolyahay uu kaga qabto hayo macnaheeda muxuu kusii joogi karaa ma ii sheegi kartaa magaalada muqdisho muhad inta uu doorasho ka qabto uu leeyahay waa lay doortay soomaaliya ay dooratay madaxweynaha hal mida u qarsaanaan karta oo ah markii baasha soo dhammaatay inuu yidhaahdo 135 odaya u noqonaynaa ayagaa xamar ku soo dooranaya xildhibaanadii saasaa lagu dooranaya ilaan isteedyadii kama hirgeli kariyo magaalooyin walba kama hirgeli kariyo wax uu wado ya idinku taas ma ka aqbalaysaa ma ka aqbalayno sideeda waxaan dadka Soomaaliyeed ku imaadaan 135 waxay ku timid shiray ku timid wada hadal ku timid dadka inay isla ogolaadeen ku timid ee raal iskaga noqdeen wax kasta oo doorasho oo waddankaani uu ku sii joogi karo waxay tahay in inta la wada fadhiisto oo inta ka soo jiid iyo inta ka soo jiid la isku keeno meel dadka ay ka wada raali yihiin laakiin anaa iri waxaan doonaa suubsanaa madaxaygaan ka soconaa ma fahmaysaa waxaasoo dhan waxaa waaye waxaa laga soo diiday madaxweyne asaga ka horreeyay waxaa laga soo diiday tii waddanka u burburtay haddana ma u malaynaya inay wax shaqaynaystaan laakiin soomaaliya un bay socodkeeda ay dib u dhigi kartaa hakad geli kartaa ama doorashada waqtigeeda ay daahin kartaa keliya dabcan labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho waxaa ka taagnay dood xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada puntland baa la celiyey oo laga soo celiyey hawada ilaa haddana muqdishoy ku xayiran yihiin sida ay sheegeen dastuurkiina berri baa la ansixinayaa ama maalmahan arrimaha socda markaad fiirisid maxay kula muuqdaan mudane wallaahi arrimaha socda wax yaab la waaye wax la filanayana ma ahan wax laga filanayay madaxweyne xasan sheekhna ma ahan runtii waad og tahay waddankaani xaaladiisa isku kabkabkiisa isku jidjidkiisa madaxweyne xasan sheekh waxaan wada ahayn siyaasiyiin madaxweyne asaga ka horreeyay maalin walba u naseexeeyo u tala celiyo qofka ugu badan oo talada sii jirane oo magacayna ku hadlayna asagoo ahay in hadda maanta asaga uu sameeyo wixii asaga shala uu ka dacwoonayay ama uu ka dhiidhiyayay ama uu ka qaydinayay in maanta asaga uu ku dhaco ama uu suubiyana wax aada maaragtay looga xumaado waay oo aada maaragtay unfortunate ah madaxweyne 70 jir ah siyaasadda waddankan soo joogay intuu dagaalada jira soo joogay intuu dhibka jira soo joogay intuu dowlad dhisaya soo joogay isagoo dhowr sano ka hor dhahayay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waddankan loo doortay mas-uuliyaddooda loo doortay waxay ku mashquulshayeen diyaarada inay dadka soo celshaan asagaa afkiisa ka dhahay madaxweyne xasan in maanta oo xildhibaano oo xasaarad leh iyo shacab masaakiin oo qaar jiray dhinac walba ay ku jiraan oo diyaarad saaran oo magaalo ay matalayeen xataa u socdo aan ummaddan cadoway aadayn xataa lama laha dhibaatay suubinayn lama laha inuu yidhaahdo hala soo celsho oo lagu soo celsho xamar oo diyaaradooda khatar geliyo oo naftooda khatar geliyo not only that markay imaadeen kadibna uu yidhaahdo ma bixi karaanba
waa xabsi guri runtii wax oo aan furajin waxaan filan karnina maaha waxaan filanayna maaha laakiin iyadoo shaqo ay u taalla mudane baarlamaanka oo dastuurkii u socday xildhibaanada laftigooda inay baxaan xogaa sidee bay kula muuqataa sharciyan waana ka sharciyan sharcigaad kula dhaqmi kartaa oo baarlamaanka lawaaixuu leeyahay waxaad doontaad kula xisaabtami kartaa laakiin amar aan amni siina asaan diyaaradihii ka soo celina asaan u diidaa inay guryahooda ay tagaan ya ixtijaaja suubin ra'yigaaga ka duwan yihiin raalli ka maha inay waxaan suubiyaan ma ku qasbi kartid qasab ku suubi waxa aniga aan rabo dadka ma dhihi kartid waxaa la joogaa 21st century la joogaa qarniga 20aad la joogaa waqti la qabi karo oo dooro maxaa la jira maxqabad biyo kuma cabta lahay oo kala suubi karo ma ahan shaqada u taalo waaba shaqada ay diidan yihiin oo la khaldan oo madaxweynaha uu ku talaabsan oo hayo way diidan yihiin waa kasoo horjeednahay leeyihiin qasab ma marka u isticmaalaysaa awood ma u isticmaalaysaa nabad sugidda iyo ciidanka maad ka adeejinay civil aviation kamaaleeda diyaaradda la soo celiyo waxyaabahaas oo waxa waaye waxyaabo oo runtii meel ka dhaca sharcigana ku xun dadnimada ku xun soomaalida ku xun dadka madaxweynaha oo maaragtay oo madaxweynaha u yahay oo dhan dhib ay ku tahay maaragtay ay ku xun tahay waxaan rajeynayaa inuu ka apologize gareeyo oo ka ictidaaro dadkaasna xorriyadooda uu siiyo ninka taageerayo iyo ninka aan taageerin ninkii baxaayo iyo ninkii joogaayo waxyaabaha asaasiyaadka oo dastuurka oo qofka muwaadinka uu siiyey ka mid tahay madaxweynihi marka dastuurka ilaalinaya inuu ku tunto runtii wax oo aad looga xumaado waayo oo maaragtay looga walwalo meesha waddankan ku dambeyn doontana khatartiisa ay muujinayso maaragtay haddii madaxdii u sareysay tasarufaadkooda iyo dhaqankooda uu noocaas noqdo waddanka suu ku dambeyn doono ilaahay baa yaqaan subxaana watacaala golaha mustaqbalka oo aad ka tirsantaa xubno ka tirsan oo xildhibaanadaas shalay hoteelka ku booqday waxay sheegeen in hayb ahaan loo beegsaday adiga taas ma kula muuqataa maadaama reer ay yihiin xildhibaanadu xildhibaanadu hal reer ma ahayn reero kala duwan oo ka yimid state ay ahaayeen dabcan state ahaana loo beegsaday waa wax sax ah ama inay baxaana loo diidanaya waa wax sax ah intaba waa surugal wax kastay dhahaan maanta xaqi u leeyihin inay ka dacwoodaan maxaa dhacay diyaarad ka degi rabto magaaladii u socotay oo dad shacbi wax walba saaran yihiin in awood loo isticmaalo awoodda dastuurka uu ku siiyo maaha inaa muwaadinka xorriyaddiisa aad ka qaadid bal inaa muwaadinka aad ku ilaaliso xorriyaddiisa waaye inaad dastuurka aad dhoortid waaye runtii garay u leeyihin waxay sheegtaan xildhibaanadaasiita dabcan sida hadda muuqataa dastuurkii baa laga shaqaynayaa madaxda mucaaradka qaar waxay inta badan ku celceliyaan in waxaa xilligan kusoo aadiyey in dastuurka laga shaqeeya ay tahay in madaxweynuhu uu ka dhex arko muddo kordhin ama inuu yani xog kusii joogo taas adiga makuu muuqataa horta muddo kordhin ama haddii waxaan waa ansaxsha dhaho iyo hadduusan dhihinbo muddo kordhin oo sharciya ma haysto madaxweynaha marnaba mana helayo the only way oo muddo kordhin uu ku heli karo waxay tahay in la wada fadhiisto lagu heshiiyo system doorasho oo raalli iskaga yahay muddada yar ee systemkaas la fulinayo haddii waqtigiisa ay dhaafto uu kusii joogi karo wixii intaas ka soo haro waa sharci darro waa madaxweyne lasoo maray waa madaxweyne xog ku joogo waa wixii oo asaga dhihi jiray maxamed cabdullaahi farmaajo aa la leeyahay maxamed ka soo bax lama dhihi jirino filada xasan uu ka soo bax filadaa la leeyahay wax kale lama jirto sababtoo ah sharciyad kuma joogo sharci kastoo la baasgaray xataa haddii laisku raacsan yahay oo dadka o dhan ay ogol yihiin xataa asaga kuma tadbiiqsan ba ku tadbiiqsan baa fatrada soo socota ku tadbiiqsan baa sharci oo gadaal loo tadbiiqinaa ma jirta sharci waxaa waaye wixii ka dambeeya hore oo ku tadbiiqsan baa madaxweynaha si uu ku heli karo muddo kordhin ma jirto the only way muddo kordhin ka hori karo oo macquula muddo kordhin maaha muddo kordhin oo muddo kordhina waa waxa uu muddo inta lagu heshiiyo doorashadii istiidada lagu qabto tii federaalka lagu qabto la isla garto shaqo la ogyahay loo xadido oo ku joogi kara madaxweynaha wixii intaas ka soo haray madaxweynaha waqtigiisa wuxuu ku yahay 15 May wixii ka dambeeya wuxuu noqonaa madaxweynihii hore Soomaaliya madaxweynaha hore la mid yahay oo maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheekh Shariif intaasoo la mid noqonaa dabcan waxaad sheegtay in madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo intii lagu yiri shalay aad ku lahaydeen madaxweynahan aad ku dhahaysaan dad badan waxay aaminsan yihiin Cabdiqaadir oo siyaasiyiin iyo shacab iskugu jira yani marka Soomaalidu dabcan qabaa'il bay ka duwan bay ka tirsan tahay inaan madaxweynahan loo wajihi karin sida madaxweynihii hore oo dabcan oo shalay siyaasiyiintiina wada socdaa hal hayb aad ahaydeen laakiin maanta midka jooga ku hayb aad tihiin oo xoogaa yani aragtida noocaas oo kale ah waxaas wax asalna maaha wax jirana ma ahan horta madaxweynihii hore marka aan mucaaradeynay
waxaa mucaaradka ka tirsanaa labada isteed oo hadda ka tirsan mucaaradka oo asaga ku heyb ah horta heyb ma ahayn qof kastoo soomaaliya oo mas-uuliyad dareemayo uu wax ka dhihi karo ama wax ka sixi karo waajibay ku tahay inuu wixii khaldan oo arko inuu wax ka saxo haddii uu madaxweynihii hore yahay iyo haddii uu madaxweyne hadda uu yahay waxyaabaha ugu daran oo madaxweyne xasan sheekh waqtiga aan madaxweyne farmaajo kasoo horjeedin wuxuu dhihi jiray see doorasho u qabanay oo laba isteed kaa maqan tahay maxamed cabdullahi farmaajo seed u qabanaysaa maantana labada isteeduu burinoohay madaxweynehu leeyahay maaragtay uma baahni qof oo bal qaarkood xildhibaanadooda baxay u celinoohaya madaxweynaha waa lagu sheegaa wax alla wixii khaldan hadduu heebaa tiriya qofka adiga dhasha u yahay inaad u sheegtaa waajibka yahay oo saxdo oo aad qabato qabashadiisana annagaaba lehba madaxweynaha waaba nooga sahlan tahay waagi hore waxbaa la dhowraayo waxbaa la laakiin hadda waaba ka sahlan tahay madaxweynaha annagaa qaraabadhimana ugu naseexaynaynaa tolnimo waa ugu naseexaynaynaa inaan tiim isla ahaan jirna ugu naseexaynaynaa sideedaba sidaa la socotid diinta ilaahay subxaana watacaala waa naseexo in qofka loo caqli celiyo loo naseexayo naseexada waxaa waaye markii rasuulka la yidhi yay tahay lilaahi uu yidhi oo ilaahay imaankiisa la sugo oo si fiican loo ilaahay rumayntiisa tawxiidkiisa waxdaanidiisa rasuulkiisa ama iyo a'imat lmuslimiina kitaab iyo kitaabka ilaahay iyo a'imat lmuslimiina muslimiinta hogaankooda haddaana annaga aanan sixin oo aanan dhihin madaxweynehu jidkaani jid kugu habboon ma ahan waa jid meel xun ku geynayo ka joog annagaa beri mas-uuliyadda la qaadayno ilaahay hortiisana mas-uuliyadda aan la qaadayna shacabkana mas-uuliyadda aan la qaadayna qofka maskiinka ah oo maanta suuqaas jooga oo aan madaxweynaha hadalkiisa gaarsiin karin oo aan arki karin oo ujeedo khaladka uu suubinayo qofka uu hadli lahay annaga waaye waa inaan dhahnaa madaxweynuhu arrintaanayto sax ma ahan asagana waxay caqligu yahay maslaxadu tahay dantu tahay inuuna dhegeysto oo qaato laakiin sida ka muuqata madaxweynaha amaba hadda habeeno dhoweed maruu la kulmaya siyaasiyiinta warkiisa ku jirta lasoo guuriyey inuu leeyahay maaragtay madax adeeg indha adeeg waa ra-sumaal madaxweynuhu indha adeeg ra-sumaal ma aha indha adeeg ra-sumaal maaha indha adeeg meel xunuuna geynaa waxa sharciga ah waxa saxda ah waxa oo dadku ku heshiiyeen meel la gey karo ra-sumaal noo noqon karo berin ummadda anfacayo laakiin adoo ujeeda inaad khaldan tahay inaad tiraahdo indha adeeg waa ra-sumaal waxayga waa wada xoogaa waxaan maleynaha inay wax badan khaldan yihiin u baahan madaxweynuhu in la toosiyo maalin dhaweyto ama dhowaan dabcan xubno aad ku jirtay oo madaxweynihii hore iyo murashax kale iyo adiga madaxweynaha dib baad ugu laabateen markii wada hadalladu ay furfurmeen weliba waxaan u maleynayaa in qaraabo ahaan la idinku diray taasna sida la sheegay wax natiija waad ka keeni weyseen maxaad kala soo kulanteen horta qof noo dirta male madaxweynaha annaga oo tiri madaxweynaha qaraab ahaan u aada laakiin annagaa isxil saarnay isxil qaabnay oo dhahna war ama si gaar hoose walba aad madaxweynihiina qaraabada atiin ula hadli kartiin sideedana sida xadiiska nabiga ahaa calayhi salatu wasalaam unsur akhaaka daaliman oo madluuman qofka walaalkaa waa inaad u gargaartaa hadduu gardaray hadduu la gardarayaaba waxaa noo muuqata madaxweynaha inuu gardaro ku socdo waxaa noo muuqata madaxweynaha tallaabada u wada iyo jidka uu maraya inuu waddankaani ay halaayi kartay gadaal u celi kartaysan hor u wadaynin inaan madaxweyne intaa waxaa la dhahna inaan bal kula hadalnaa rabnaa annagay naga soo go'day saddexdeenna waan u tagnay waa la hadalnay waxaan kala hadlayna waxay ahayd madaxweynuhu doorasho dadku ay raal iskaga yihiin shalaa lagu soo doortay iyadoo qof soomaali mar labaad lasoo doorana lagu soo doortay doorashada dadban oo ka cararaysid lagugu soo doortay adiga maamullo inta wax soo qorteen oo madaxweyne jooga wax soo rug u qortay inta laga tagay adiga lagu soo doortay ilaahay haddii uu kuu qoray berrina waa imaan kartaa laakiin wax dadku aan berri conflictigooda sii fogeynaynin waddanka burburkiisa aan ziyaado ka dhigaynin oo dadku iskugu imaan karaan aan ka hadalna isku sheegna aan dhehayna madaxweyne waana ka weynay waxaan rajaynaynaa laakiin inuu maarata caqliga ilaahay soo celiso muxuu idin sheegay dabcan idinku haddaa intaa u sheegteen wuxuu noo sheegay inuu uu musamim ku yahay tuu asaga waday inuu ku socdo wuxuu yihi tana aniga rabaa inaan ku socdo tan in lagala shaqeeyaan rabaa taasna waa midda annaga noo muuqatay inay waddankaan ay ka raadiyeyso haadaan ka tuurayse inaysan waddankaan dhul barwaaqa aysan geehin ay noo muuqatay oon kala hadlayna welina waxaan rajaynaynaa haddii jaanis kale aan u helna inaan arki doonno raadino wakti kastoon arkarna aan aragno aanan ka quusan ilaa aan ka bedelno ra'yigiisa madaxweynaha uu nala arko khatarta annaga aan u jeedno maanta puntland iyo jubbaland inta imaadeen oo aan heshiina dhahayo
inta wax kasta la diiday baxeen xildhibaanadooda maanta xoog waa ku joogaysa la leeyahay ilaa intee xooggaas u socon karaa ilaa intay dowladnimadu ay intaas kusii jiri kartaa ma u maleynahay haba yaraatee marka annagana ma rabno annagoo nool oo weli maanta siyaasadda hoggaankeeda damacne oo ka shaqayhayno inaan ku fiirsano nin walaalkeena ama saaxiibkeena ama annaga isku jil ahayn in waddankaani uu inta la cararo uu god ku rido ama uu derbi kala boodo mar walba u naseexey karna u naseexeyna shalana usoo naseexeynay haddana maalintaan jaanis weyn loo noqo oo tegayna u naseexeynayna biidn illahi tacala dabcan muddaxileedka madaxweynaha iyo guud ahaan dowladda waa gabagabo idinka golihiina waxaad shir ku baaqdeen ama gogol aad iskugu imaaneysaan 10 abril haddaan qaldaneen ma isleedihiin dadaaladaas aad wadaan way ku imaan kartaa doorasho wada ogol ah oo yani waa iskugu soo dhawaan karaa annaga sideeda dadaaladan wadno oo waagii Kismaayiil baaqaa usoo jeedinay marka halkaa nimidna aan ka hadalnay oo maalin walba aan ka hadlay waxay tahay Soomaaliya waxaa meel fiican gii kara wax wadar ogol ah isla ogol ah oo la isla ogol yahay wax hal qof oo wato ama hal group ay wataan wuxuu si mar walba uu ziyaadinaa qaybsanaanta uu ziyaadinaa mar walba qaybsan waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaalida dad badan oo wax kala jiro dad wax kartaa jiro madaxweynaha u naseexin karo internationalka maanta Soomaaliya garab taagan oo maalmo kaalmeynayo ra'yi leeyihiin ayaga naftooda way soo dhaxgali karaan waxaan rajaynaynaa madaxweynaha wax uu caqli celsho oo wadadan oo mugdiga ah ka soo celiso in Ilaahay uu keeno haddii imaan weyso alternative kasta oo kale oo dadka Soomaaliya lagu badbaadin karo waa in la qaataa maxaa ka mid waniga hadda waxaas aan ka mid ku dhahay laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka Soomaaliya iskama fadhinayaan wadankii uu burburay waa inay tallaabo qaadaan lagu badbaadin karo waddankaanit way dabcan waqtigu hadda waa gabagabo dowladdu qorshay leedahay sida madaxweynaha uu idin sheegay inuu doorasho qabso idinkuna waa diidantihiin mandate-ka madaxweynaha hadduu dhamaado idinka qorshe idin yahay miyaa jira golihiin mustaqbalka shirkaasaa looga tashan doonaa wax markaas laga suubi karo oo garow aad ugu socotaan garow ma sheegin annaga in shir 10 bisha Abriil la isku imaanayna laakiin magaalada taa weli lama xadid ma laga yaabaa inaad Muqdisho ku qabataan wax diidaya ma leh wax diidaya ma laha loo yaraatay way dabcan haddaan waa ku weydiiyey mar kale inaan kugu celiyaan jeclaa dastuurka hadda waxaa lagu sameynayaa dhamaystir صح oo dowladdu hadda xalay iyo in campaign baa socday xildhibaanada inkastoo qaar ay tageen qaar waa la soo celiyay oo Puntland inta looga daba tagay baa hadda sida muuqata la soo celiyay marka waa la soo celiyay adigu wada hadallo baa lagu soo celiyay marka dastuurka in la dhamaystir karo xilligan ma ku muuqataa mudan wallahi dastuurka sidiisa waa wasiiqo oo dadku ay ku heshiiyaan shalay markii la suuminayay dastuurka hadda yaallo oo 2012 waa ogeed in la isku tagtagay garoowe la tagay marka la isku yimid mar Addis Ababa lagu shiray mar la soo diyaariyay ergo 800 wax la jiraha asaxisay waxaas oo dhan waxaa loo suuminayay wax consensus ah oo dadka ay isla wada ogol yihiin inay noqdaan haddii dastuurkii oo hadda xildhibaanada xataa la rabo inay ansixiyaan la qasbayo la jajoobayo xaggee wax dastuurkaasi ka shaqayn doonaa xaggee laga hirgelin doonaa oo isteedyada qaar ay leeyihiin waa ku jirno oo dan kama lehin aniga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha ama tiimkiisa aan dhihi lahay caqliga ha shaqeeyo dib ha loo dhigto codayntaana la ordaayo dib ha la iskaga dhigto ha la isqanciyo dadka Soomaali waaye waa is afyaqaanaan waa is dhaqan yaqaanaan ha la israadiyo wax consensus ah laga shaqeeyo wax bariba aan shaqayn doonin oo meel tagaan aan jirin inaad tiraahdo dastuuran dhamaystir aniga waxaasaan suubiya aniga waxina ayna shaqaynin wax macnaha suubinayna weelata malaha marka aniga caqliga waxaan qabaa in dastuurkaasi wax la ordaayo ama xoolaha lagu baxsho oo tiro badan ama handadaad iyo xarig xildhibaano la soo xiraha lagu suubiyo haddaana dadka Soomaalidu aysan iskaga raali ahayn oo aysan jirin consensus dadku isla qabaan oo isla qaateen aysan jirin meel oo dastuurka noqonaya habeeraata ma jirto waan ognahay xaaladeena dawlad maanta ciidankeedu xuduudaha u xiran yihiin ma nihin dawlad isteedyada waxay doonto ka suubi karta ma nihin way u cararaysaa u ordaya marka wax adiga ogtahay inaad hirgeli karin dhaqan geli karin just inaad tiraahdo waxbaan fuliyey waxbaan suubiyey baarlamaanka waxaan geeyay waa la codeeyey oo berina aan shaqaynayno meeshooda laga soo qaadaynin maxay macno suubinaysaa waxba macnaa ma suubinayso marka aniga taladeeda waxay tahay oo madaxweynahan usoo jeedin lahay iyo ragga kaaga dhow oo dhahayo maalin taariikhi noqonay dhahay maalin taariikhi Soomaali kala qaybsanta taariikhi maahan wax Soomaali ku kala qaybsan tahay in la suubino taariikhi ma noqonayaan marnaba marka waxaan dhihi lahaa in caqliga shaqeeyo oo dib loo dhigto
oo fadhi inta la isku yimaado si sax ah oo serious ah oo looga wada hadlo saasaan inta ila tahay mahane waxa la sheegayo waxa la suubinayo waxaan berri meel tegaynin macna ay suubinayaan malaha yaraata dabcan doorashada iyo waxyaabahan kale aad isku haysaan muddaxileedku intuusan dhammaan ka hor haddaan laga heshiin waddankan in khilaaf siyaasadeed ama qalalaaso uu wajihi karo ama geli karo ma ku muuqataa saacada iyagu qof kasta u muuqataa oo wax garto ay u muuqataa maanta qof ka xoog badan ma jiro qof xoog ku haysan kara ma jiro qof madaxweynaha ahay aniga shaqo kuuma le dhihi kara ma jiro ma fahmaysaa markuu xoogga shaqeeyo iyo caqliga shaqeey waayo waa soo marnay magaaladan inaga burburisa meel walba ina geysay waxa shaqeynaya waa caqliga waxa shaqeynaya waa in la wada hadlo waxa shaqeynaya in la wada fadhiisto ma fahmaysaa soomaaliya intaan ka xoog badan oo ka ciidan weyn xoog dadkaan lagu haysa waayo caqliga inuu shaqeeyo keliya waa imaan wax kaloo shaqey kara haweenaata ma jirto marka aniga waxay la tahay dhibaato iyo wax walbaa imaan kara laakiin nasiibaan leenahay waxaan rajaynaynaa fatadaasba intaan la gaarin in uu isfaham yimaado oo soomaaliya ilaahay dhibkaan uu ka saaro maaragtay uusan dhibkaan annaga dhan noo muuqdo uusan imaanin biidn illahi tacaala ugu dambeyntii fariintaada mudan aad kusoo gabagabeynaysa fariinteedaan kusoo gabagabeynayo waxay tahay waa nasiixo sida xadiiska haddaata aan sheegayay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabigii maaragtay uu ka warinayo uu leeyahay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuula allahi uu yihi nabigu calayhi salatu wasalaam lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati almuslimiina wacaamatihim xadiiskaasi imaam muslim aa warinayo waa rugni weyn oo diinta islaamka ay leedahay oo diintii oo dhan ama diinta dhan oon leenaho islaamka oo nabigu wuxuu kusoo koobay calayhi salaatu wasalaam inay nasiixa tahay in wax wanaagga la isku sheego wax xaqa la isku sheego wax saxa la isku sheego waxaan rabi lahaa madaxweynaha inuu mar kaligiis gadaal u fadhiisto oo ka fekero uu yidhaahdo maxaad aad keenaysaa haddaa intaan suubiso oo keligaa maskaxdaada ka socoto maxaase halaabay uu yidhaahdo haddii aad dhegaysato dadkan kula hadlaayo oo ama mucaarid ku magacaabo ama dad kale ku magacaabo haddaad dhegaysato maxaa hirgalaya maxaa gaaraysaa haddaad dhegaysato maxaa imaan kara inuu ka fikir aad u fiicnaan lahayd qof kasta oo soomaali ah dad badan oo soomaali waxa laga yaaba inay leeyihiin idinku mar walba ninka joogaa leedihiin ka deg meesha maslaxadda ummadaana ku dhisan in waddankaani qof dictator uuna samaysmin maxaa dhacay 21 sana dictator subsanaa wixii aan dhisnay 21 sana hal maalin iyo hal bil iyo hal sano ay ku wada burbureen ay dhulku tageen waddankaani wuxuu ku wanaagsanaan karaa uu ku sooqeyn karaa in dadka rabitaankooda iyo waxay consensus ku yihiin in lagu shaqeeyo oo lagu hogaamiyo nin caqligiisa keliya ku hogaamin kara male waxa lagu heshiinaya inay noqdaan wax dadka ka dhexeeyo wax qof uu wato uu asaga wax uu rabo uu ka suubsado qofku rabo uu ka diido ma ahan waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo xildhibaanada saaxiibada oo baarlamaanka ku jiro golaha shacabka ku jiro mas-uuliyadaas saaran taariikhaa saaran berita waa la weydiinaa amaama shacabka waa la weydiinaa amaam wallahi marka hore waa la weydiinaa shacabka hortooda waa la weydiinaa waxa ay maalin walbo ay inta ordaan ay gacmaha u taagayaan ama ay saboortgareynayaan ama ay meelaha kusoo qorayaan waa taariikhi ilaahay ha uga baqaano ummaddan ilaahay ha uga cabsadaano waddankan maaragtay ilaahay uga cabsadaano oo ha fiiriyaano waxa ay subinayaan xaggeyna geynaysaa madaxweyne xasan sheekh qorshahan uu wado uu leeyahay dastuuran dhamaystira ama doorashaan saan raba ani u qabana sa ani ku joogi lahaayaan maaragtay aan u suubsana madaxweynuhu hortaha la soo waayey adiga naftaada dhijir hortaa jiraa waaye aan isku nimaano wax saxo nadiifa oo raalli iskaga nahay aan suubsanno saasoo waddankeena wanaag u ah anaga wanaag noo ah qof kastoo soomaaliyan waxaan ku talin lahaa in madaxweynaha iyo inta kale dhowba ay ugu naseexayaan wax laysla ogolyahay in waddankaa loo suubiye waa hallin oo inta u saaran inta qof u saaran waddankaa laguma hogaami karo aragtay wabillahi tawfiiq aada iyo aada buu umahadsan yahay xildhibaan ahna murashax madaxweyne mudane cabdulqaadir cusuble cali oo ii waramayey intaan daawadayaal iyo dhegeystayaal waraysigaan mid lamid a ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu